perfect killing machine. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibadan jecelnahay oo kusoo dhawaada kanaalkeena Zack Pro ee YouTube. Maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa tiktoorkii loogu magac daray dilaagii ugu qatarsanaa taariikhda casriga, kaasoo lagu magacaabi jiray Harold Frederick Shipman. Sidoo kale waxaa lagu naanaysi jiray tiktoorkii dhimashada iyo malagii geerida. Dr. Shipman waxaa ku caddaatay inuu gacantiisa ku dilay dad ka badan 250 qofood, kuwaasoo ay 80% ay ahaayeen dad da' ah. Intaan u gudagelin sheekada tiktoorkan dilaaga ah, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto channelkan oo sii share garaysa videogan saaxiibada. Markan aan gudagalno muuqaalkeena. Dr. Fred Shipman wuxuu dhashay 14 January sanadii 1946 isagoo ku dhashay xaafadda Bestwood ee magaalada Nottingham dalka Ingiriiska. Wuxuu ahaa cunug labaad qoys ka kooban 3 cunug iyo waalidiintooda. Shipman markii uu gaaray da'da 20 wuxuu ku biiray jaamacadda magaalada Leeds isagoo ka baranaya cilmiga caafimaadka iyo qaliinka sanadii 1970. Kadib wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo isbitaal lagu magacaabi jiray Pontefract. 1974 wuxuu qaatay booskiisii ugu horeeyay ee dhakhtarka guud xarun caafimaad oo lagu magacaabi jiray Abraham Ormerod. Sanadii xigtay Dr. Shipman ayaa la qabtay isagoo daraagiis ahaan u isticmaalayo dawooyinka loo yaqaan betadiinka, waxaana lagu ganaaxay 600 pound. Wuxuuna iska xaadiriyay xarun loogu talagalay in lagula tacaalo dadka qabatamay daraagiska. Dr. Shipman wuxuu sii waday shaqadiisii ahayd doktorka guud 1980 wuxuuna 1993 aasaasay xarun qaliin oo isaga gaar u ah, halkaasoo uu ka dhigtay halka uu ku dilo dadka. Kadib sanado badan oo Dr. Shipman si ula kaca u dilayay bukaanada soo booqda xaruntiisa, March sanadii 1998 gabar lagu magacaabi jiray Linda Reynolds ayaa waxay booliiska ku wargelisay xaddiga farakabaxa ee dadka ku geeriyooda xarunta caafimaad ee Dr. Shipman, taasoo shaki weyn ku dhalisay booliiskii magaalada Manchester. Si gaara Linda waxay diiradda u saartay sidoo kalena ay ka shakisay tirada dadka ku dhinta magaalada Manchester, kuwaasoo u baahda caddeyn ah in la caddeeyo geeridooda. Waxayna booliiska ku guuldareysteen inay keenaan caddeemo ku filan oo lagu soo xiro Dr. Shipman. 17 Abriil isla sanadkaas, booliiska waxay guud ahaan soo gabagabeeyeen kiiska. Bishii Agosto isla sanadkaas, nin taksiilaha oo lagu magacaabo John Shaw ayaa booliiska u sheegay inuu qabo shaki ah in Dr. Shipman uu dilay 21 qofood. Shaw wuxuu shakigiisa u cuskaday in dad badan oo da' ah uu keenay xarunta caafimaad ee Dr. Shipman, kana muuqanin wax halis ah oo ku dhintay isla goobtaas. Kadib sanado badan oo Dr. Shipman ku dilayay dad aad u tiro badan xaruntiisa caafimaad, dhibaniisii ugu dambeeyay oo gacantiisa ku dilay waxay noqotay islaan lagu magacaabi jiray Kathleen Grundy oo meydkeeda laga helay gurigeeda 24 Juun 1998. La yaabka ugu daran wuxuu yahay Dr. Shipman wuxuu ku sababayay dhimashada Mrs. Grundy inay tahay duqnimo. Isaga ayaana gacantiisa ku qoray waraaqda uu ku cadeynayo dhimashadeeda. Gabar ay dhashay Mrs. Grundy oo lagu magacaabo Angela Woodruff ayaa walaac ka muujisay sheegashada qareennada oo ku tilmaamay Mrs. Grundy inay ahayd qof isticmaala daraagiska. Waxayna u tagtay booliiska kuwaasoo baaritaan ku bilaabay meydka Mrs. Grundy, waxaana laga helay raadadka dawooyinka loo yaqaano diamorphinka oo inta badan loo isticmaalo xakamaynta xanuunada kansarka. Shipman ayaa ku candacooday in Mrs. Grundy ay ahayd qof balwad leh. Sidoo kale wuxuu booliiska u soo bandhigay faalooyin uu ku qoray kombiyuutarkiisa, laakiin faalooyinka uu ku qoray kombiyuutarkiisa ayaa muujiyay in la qoray kadib dhimashada Mrs. Grundy. Shipman waxaa la xiray 7 Sebtembar 1998 kadib markii ay ku caddaatay dilka uu dilay Mrs. Grundy iyo dad kale oo aad u fara badan. Wuxuuna dhammaan dilkooda u adeegsaday dawooyinka loo yaqaano diamorphinka isagoo ku duray xaddi badan oo daawada ka mid ah. Kiiska dacwadda ee Dr. Shipman eedda loo haystay Dr. Shipman waxay ka bilaabatay maxkamadda Preston Crown 5 Oktoobar 1999. waxaa lagu soo eedeeyay dilka 15 qof oo dhammaantood ahaa haween. intii u dhaxaysay sanadihii 1995 ilaa 1998
waxaana keliya la helay caddeynta 15 qof inkastoo uu dilay dad aad u fara badan. 31 Janwari sanadii 2000 kadib 6 sano ay socotay dacwadan, xeerbeegtida ayaa Dr. Shimon ku helay inuu si kas u dilay 15 qof, waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. dhimashadii Dr. Shimon taariikhdu markii ahayd 13 Janwari sanadii 2004 Shimon ayaa isku dhex dadalay xabsiga uu ku xirnaa. saacaddu markii ahayd 8 aroornimo isla maalinkaas, waaxda caafimaadka ee xabsiga ayaa xaqiijiyey geerida Dr. Shimon, wuxuuna isdilkiisa u adeegsaday maryihii ku firaashnaa sariirtiisa, kuwaasoo uu ku xirtay daaqadda. dhimashada Dr. Shimon ayaa kala qaybisay wargeysyada dalka Ingiriiska, iyadoo wargeyska lagu magacaabo Daily Mirror uu ku tilmaamay fulay. sidoo kale wuxuu cambaareen u jeediyey dowladda oo ku eedeeyey sida ay u ogolaadeen inuu maxbuus isdilo. sidoo kale wargeyska lagu magacaabo The Sun ayaa boggiisa hore ku soo qoray ciwaan dabaaldega, halka wargeyska kale lagu magacaabo The Independent uu ku baaqay in baaritaan buuxa lagu sameeyo qaabkii uu si dilay Dr. Shimon, iyo sidoo kale in loo kurgalo xaaladaha xabsiyada ee ka jira dalka Ingiriiska. intaas ayuunu ku eegyahay muuqaalkeena maanta. ha ilaawin haddii uu qanciyey inaad like saarto, sidoo kalena subscribe saarto channelka haddii aad ku cusub tahay.